iyada oo qiyaas la sameeyay sanadkii hore lagu sheegay in ka badan 70% dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan adeegga lacagaha taleefanada lagu qaato sida EVC Plus ayaa maanta gabi ahaanba shaqaynaynin waxayna taasi saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan nolol maalmeedka dadka gaar ahaan ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha haba ugu badnaatee mooto bajaajka oo inta badan Muqdisho aad looga isticmaalo gaadiid ahaan darawallada mootooyinka bajaajta ayaa qaba cabashada ugu badan ee saameynta adeegga EVC Plus waxayna sheegeen in dad badan ay qaadeen maanta aanay ka helin wax lacag ah wallahi gelinka hore $15 shaqaysan jiray saakaan haya $1 telefoonka igu jirta iyo $1 oo kaash maam isiisay 10 qof lacagteeda way maqan tahay ilaa had meel aan ka sheegay ma hayo Yaasiin Aadam Muallim waa sarifle waxa uu muuqaal baahiyaha KNN u sheegay in aanu maanta wax shaqo ah uusan sameyn taas beddelkeeduna uu sheegay in ku dhawaad 5 saacadood kaliya inta uu dad garanayay uu siiyay lacag deen ah oo shilin Soomaali ah si ay u adeegsadaan saaka 12 saac ilaa 5 saac hal shilin oo gadna male bal annaga wax naga bixeenoo lacagtii Soomaaliga waxay noqotay bahal dahabo intaan ku qorona dadka customerka waa kana waa la wada siinayo nin $100 reeysta saaka u baahan $2 deyn waxa soo lacag deynaan baxsho AFC-ga ku shubtaan dib male laakiin lacagta biilka iyo baahiyaha daruuriga oo reerkay u baahan yihiin waxaan qabaa in lacag Soomaali in laga dhigo wixii kaydo culays looga baqaamo ma ka dhunta looga baqaa lagu xidsanayna la isaga shubto dhanka kale dadka u soo adeeg doonta suuqyada oo aan la kulanay ayaa iyaguna sidan inoo sheegay waxa igu yaabadneed oo soo baxay naag cambuulo gadaysa oo ma salbuqi qamadi waa cunay waa naag miskiin oo wadada maaragtay ii sheeg wax ku leh oo tabakaay yariis ugu furanta meel buush camal maamadii da'deeda adiga waa 70 meelahaas iyo 60 meelahaas ku qiyaas waa waayeel marra lacaga u tuurna waa AFC cambuuladina waa cunay waa ani iyo koo yariis oo adeer ah marka maamada waxay istaagtay ilaa wayla lacagta u baahana lambarkeeda gili indhaha waxba kama arkayna waxay u malaysaa in aniga khiyaanoy marka xal oo maarag dadka dariska soo baxaan oo dukaamada meesha soo baxaan oo maaragtay ii sheeg Allahu musta'aan oo AFC-di aad soo laga noogo oo dadkii xalka raadinay naftirkooda shin Soomaali ii waayaan marka maamada waxa la maaragtay lambarkaaga noo qor ninkan hada aaminina hada aniga aamin wallahi aan hadda qofeena ahay waqti ma sheegi karo aan isticmaalaa soo indha qaaday reer ay yeelanay AFC waxaas leeyahay wada shil Soomaali marra ugu dambeysay lacagtayda ay ku jirta aan haysta baabuurna ma raaci kari hadda waa bariyaan tagana waa bari ilaa iyo xamar weyn waxay noqonaynaa lug ku tago waa ninka baabuur hadda mooto raaci iyo tuuro ilaa shil Soomaali hadda BL raacan wuxuu leeyahay shil Soomaali si shil Soomaali hadda hadaan dhaw gurigeyga geeyna xataa oo lacag iga yeel guriga ma ii taalo 12 sano ee ugu dambeysay waxa inta badan dadka Soomaaliyeed ay adeegsanayeen ama ay isticmaalayeen lacagaha lagu qaato mobilada ama telefoonada sida EVC Plus-ka maanta ayuu dhibka ugu badan ka jira oo ay dareemayaan dhammaan dadka wax ku kala iibsada sida bajaajkan imika saaranahay iyo sidoo kale ganacsiyada kale sida waxyaabaha daruuriga ah ee maalinlaha loogu baahan yahay Cabdullaahi Xuseen Canshuur KNN